ayaga hadalkeeni xilka dhabarka saare loo dhaarsha qaranko maxaa dhaxo hawlida sugaysa maxaa hawlidin sugaysa kuwadhiilki buuxshe dhiishii ka marhantee dhabatoosa hayste ka dhur sugi dadalkee kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii maqal dadkaaga oo toddobaadkiiba 2 jeer aad ka dhageysataan Radio Hargeysa. toddobaadkan waxaynu kaga hadlaynaa barnaamijkeena faa'iidada uu dabdamisku u leeyahay bulshada Soomaaliland. ugu horreyn dhageystayaal aan eegno bulshada magaalada Hargeysa sida ay u arkaan ciidamka dabdamiska iyo waxyaabaha ay jecel yihiin in lagu kordhiyo. Maxamed Cabdi Qalinle oo kamid ah soo saarayaasha barnaamijka maqal dadkaaga ayaa magaalada Hargeysa waxa uu mikrofoonka la dhex qaaday dadweynaha ku nool iyo aragtida ay ka qabaan ciidanka dabdamiska. Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Suud Cabdilaahi. afayeenka guud ee dalada aqoonyahanka horseed ugu horeyn waxaan aad u salaamayaa insha Allah idaacadda Radio Hargeysa. su'aasha fiican runtii aan weydiiseen ciidamada dabdamiska runtii waxaan arkaa inay ahaayeen ciidan aad loogu baahnaa intii aan dabdamiska runtii la abuurin unit gaar ah laga dhigay dawladda hoose la hoosgeeyay waxaanu ka warqabnaa in dhibaatada ugu badan bulshada iyo caasimadda iyo gaar ahaan magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland haysatay runtii waxay ahayd in aanay jirin meel gurmada oo ay dhici jirtay in hanti badan ku baabaabo waxa kamid ah suuqyada waaweyn ee lacagta badan taallay inay khatar ugu jireen runtii inay burburaan marka runtii waxaan aaminsanahay xukuumadda cusub insha Allah talahaan ugu soo jeedinayna waliba in laanta dabdamiska runtii la sii xoojiyo talahaan waxaan soo jeedin lahaa midlan caasimadda Hargeysa kale waxyaabo badan bay ka kooban tahay degmada ugu ballaaran ee makaan waan joogay Maxamuud Haybo kale in waaxyahaas kale laga sameeyo dabdamis iyadoo runtii airportka kale ku dhawiyay marka talada ugu badan runtii aan soo jeedinayna waxa weeye in waaxyaha magaalada Hargeysa kale iyagana la ballaariyo oo iyagana dabdamiskii iyo xarumihii dhan laga sameeyo ciidamada dabdamiska kale runtii in tababaradooda iyagana runtii loo xoojiyo oo iyagana darajooyinkii iyo wixii ay u qalmeeyeen runtii la siiyo in telefoonada lagala soo xiriiri karo dhammaan mar walba runtii iyagana ay available ahaadaan oo bulshadii runtii ay ku dhexidhnaadaan man iyagana talahaan soo jeedin lahaa gawaadhida dabdamiskana halka imika xarunta ay ka yaalaan xaafadaha kale iyo waxyaha iyo meelaha halbowlaha suuqa kale insha Allah inay ku diyaarsanaadaan weli dhageystayaal waxaanu ku guda jirnaa barnaamijkeena maqal dadkaaga oo aynu toddobaadka kaga hadlayno faa'iidada dabdamisku u leeyahay bulshada Soomaaliland. haddaba si aynu u ogaano muhiimadda dabdamisku ay u leedahay bulshada ayaa waxaanu ka wareysanay injineer Yuusuf Muuse Cabdilaahi oo ah hoggaan xigeenka waaxda farsamada iyo tababarada oo u waramay Ikraan Siciid Diriyo oo kamid ah soo saarayaasha barnaamijka maqal dadkaaga Radio Hargeysa. waxaana ugu horeyn weydiisay faa'iidada uu dabdamisku u leeyahay bulshada magaalada Hargeysa. bismillaahir rahmaanir rahiim aad iyo aad baad mahadsantihiin marka ugu horeysa mar labaadka haddaan kaaga joogo su'aashaas dabdamisku intii la bilaabay waxa uu bulshada u soo kordhiyay faa'iidooyin aad u badan waxa kamid ah waxyaabaha faa'iidooyinka u ah ee bulshada u soo kordhiyay sidii looga hortagi lahaa musiibooyinka iyo aafooyinka dabiiciga ah ee ku yimaada bulshada ee dabku uu ka mid yahay siyaabaha looga hortagi karo aan uga hortagnay waxa kamid ah marka koow inaan wacyigelin siino bulshadii inaan tababar siino bulshada iyo inaan u tilmaamno agab ku habboon oo laga hortagi karo musiibooyinka dabku ka mid yahay sidoo kale dabdamisku faa'iidooyinka uu bulshada u leeyahay waxa kamid ah in uu ka jawaabo dhiilo kasta oo laga soo sheego guud ahaan dalka gaar ahaan waliba goobaha imanka uu gaaray dabdamisku oo marka ay bulshadu soo sheegato goob dhiilo ka bilaabatay dabku amba musiibo kale ka bilaabantay sida ugu dhaqso badan la ugu gurmado halkaan uu ku badbaadiyo marka naafo badan iyo maal iyo hantiyo aad iyo aad fara badan oo runtii uu badbaadiyo ciidanka dabdamisku sidoo kale ciidanka dabdamisku waxyaabaha uu bulshada u tara waxa kamid ah waxa uu kobciyaa aqoonta guud ee uu dabka bulshada ay u leedahay waxaan ogsoonahay dabku inuu ka mid yahay aqoonta aadka u yar ee aanay bulshadeenu ilaa hadda haysanin hadday tahay xagga manaahijta waxbarashada ee ka baxa dalka iyo haddii ay tahay aqoomaha kala duwan ay bixiyaan institutionada madaxa banaanba marka ciidanka dabdamisku waxa uu ku heelan yahay mar walbana waxa weeyaan uu ugu diyaar yahay inuu kobciyo aqoonta uu leeyahay qofku ama shakhsigu ma family-guba aqoonta uu dabku u leeyahay inuu ogaado taasina waxay keeni kartaa marka faa'iidooyin fara badan oo kaga hortagi karo dabka inahaasa kamid ah iyo qaar kale oo fara badanba faa'iidooyinka uu ciidanka dabdamisku u leeyahay bulshada aad ayaad mahadsantahay injineer Yuusuf Muuse Cabdilaahi bal waxaad ka
warantaa dhibaatada hadiiba dab kaco ka dhalan karta markuu meeshaasi amaba suuq amaba xaafad amaba guri u dabka yimaado kolley dabku waxa uu ka mid yahay aafooyinka aadka u khatarta ah isla markaana sida ugu dhaqsaha badan leh u fida iyagoo ay jiraan waxyaabo fara badan oo u fududeeya dabku inuu si degdeg ah u fido haddana dabku markastaba wuxuu ka mid yahay aafooyinka ugu musiibada badan leh meel uu dab ka kacay ayaa laga yaabaa inay ummadani ku baabaado ama bulshadani ku baabaado wuxuu dabku halistiisu ay ka badan tahay xabado iyo qori dhacaya marka waxa weeyaan khasaaraha uu keensan karo waxa ka mid ah kow inuu nafo badan baabi'iyo inuu bulsho badan dhibaato ka soo gaadho inuu maal badan baabao in ummadan oo meel wada degan amba waxa weeyaan area kooban waxa weeyaan halkaas ku baabaado khasaare aad u laxaad lana u keensado waxaanu ku fidaa sida ugu dhaqsaha badan leh oo ilbiraqsiga gudaheed ayuu ku baabin karaa ummadan oo meel degan marka halistiisu aad bay u badan tahay ka ciidan ahaan qaab nooceeba looga hortagi karaa intaanu dabkaasi dhicin ama marka uu qarxa sidaba looga hortagi karaa kolley dabku marka ugu horeysa uu bilaabmo ayuu ku wanaagsan yahay la xakameeyo marka horta ugu horeyn waxa weeyaan marka uu dab bilaabmo waxa muhiim ah in ciidanka dabdamiska loo soo sheego si loogu gaaro waqtiga ugu haboon iyo sida ugu yar inta aanu gaarin waxa weeyaan meel halis dabka waxa la baqtin karaa inta uu yar yahay markasta uu sii kordhana amba waqtigiisu sii kordhana wuxuu keeni karaa khasaare ka sii badan marka ka dabdamisaan anagu waxaan ula dagaalanaa amba aan u yaraynaa marka ugu horeysa ee la soo garaaco 990 ee goobta dabka ka bilaabmo isla ilbriqsigiiba waxa loo digaa emergency-ga degdeg ee 24 saacadoodba diyaarka uga ah xarunta ciidanka dabdamiska marka sidaa loo soo sheegay 990 amba Hargeysa ha ahaato amba Burco ha ahaato amba waxa weeyaan Wajaale ha noqoto amba Boorama ha noqoto inta ciidanka dabdamiska ka jiro marka sidaa 990 loo soo garaacaya goobta la gaadhay marka waxa aad iyo aad u yaraanaya khasaarihii meesha uu keenaya amba naf ha noqoto amba maal ha noqoto marka sidaa waxa weeyaan loo gaadho goobtii waxa la badbaadiyay ugu horeeya waxa weeyaan kow in ummad wixii halka ku jirta laga barabixiyo waxa weeyaan waxa la socda ciidanka dabdamiska waaxihii caafimaadka la socda markaas bay emergency-ga u fudiyeen mar labaadkana waxa lagu badbaadiyaa hantida halka uu dabku taagan yahay inaanu dhaafin sidoo kalena lagu baqtiyo marka waxay ku xiran tahay markastaba sida loo soo sheego anaguna markastaba waxaan ugu diyaarnahay 24 saacadood baynaanu khasaaraha yareyno ka hortagiisuna wuxuu ku xiran yahay cidda markaa meesha ku sugan leh aqoon inteen leeg bay dabkii u haysaa ma haysata qalabkii ku haboona wuxuu wanaagsan yahay dabku marka uu bilaabmay la baqtiye marka inta ugu badan leh waxa weeyaan ka hortagiisa iyo demintiisa marka la soo sheego ayaan ugu gurminaa dadka marka laga yimaado qaabka ay uga hortagaan ciidamada dabdamiska ay u tababaran inay dabka damiyaan ama masiibada meeshaas ka dhacday ka bulsho ahaan inteed ogaalkaaga ama aad ogtahay oo ay ka qayb qaadan karaan in ay damiyaan dabkaas ka hor intaan ciidanku soo gaadhin bulshada ma u tababaran tahay qaab nooceena bulshada ka hor intaan ciidanku soo gaadhin u sii damin karaan dabkaas waa su'aal aad iyo aad u muhiim ah horta kolley ciidanka dabdamisku muddo aad u badan mu jirin asaaskiisuna ugu dhawaa sidaa daraadeed weli waxa jirta aqoon yaraan baahsan oo bulshada dhexdeeda ah xagga dabka welina ma wada gaadhin aqoontii dabdamin hase ahaatee waxaanu imika ku guuleysanay in waxa weeyaan marka uu dab yimaado qofku xasuusta ugu horeysa ku soo dhacda ay tahay ciddii dabka ka badbaadin lahayd oo markaas uu soo garaaco 990 si gurmad loogu fidiyo markaas laakiin bulsho ahaan waxay kaga qayb qaadan kartaa goobta dabka uu ka dhacay waxa weeyaan iyada ugu nugul iyadana ugu waxa weeyaan baqtiin og markay aqoonteeda leedahay waxa weeyaan marka sida ay u baqtiin kartaa waxa weeyaan aqoonta ay u leedahay goobtaas marka dabku ka dhaco aqoonta dabka ay u leedahay iyo qalabkii ku haboonaa oo ay haysato ayaa keeni kara inay markiiba damiyaan dabka meeshaas ka bilaabmay marka runtii waxay weeyaan bulshadu waxay u baahan tahay inay barato aqoontii dabka isla markaasina ay diyaar ku dhigato ama goobta ganacsiga ama goobta la degan yahayba qalabkii ku haboonaa ee ay iskaga dimin lahaayeen marka inta qalabka la soo gaarin dadka inta badan booyada iyo biyo iyo waxa intaas marka dabku kaco ku baqtiyaan marka taas qayb ka tahay in dadku inay biyo soo daraan dabka ku baqtiyaan mise biyo qayb ka sii qaad iyadoo ay ku xiran tahay dabka meesha ka kacay nooca uu yahay haddana runtii waa runtaa bulshadeenu waxay isku daydaa marka uu dab bilaabmo inay isku dayaan inay baqtiyaan amba adeegyo kale iyo waxa weeyaan booyada ha u adeegsadaan amba waxa weeyaan waxyaabo kale oo aan ku habboonayn oo meeshaas ay ku adeegsadaan sida ciidda oo kale oo isku dayaan marka hore inay la dagaalamaan taasina waxay keentay inuu dabku ku sii weynaado halistiisuna ay sii badato marka waxaan xasuusin lahaa in uu jiro adeeg bilaasha oo waxa weeyaan 24 saacadood u diyaara hadday tahay damintiisii qalabkiisii hadday tahay biyihiisii hadday tahay gaadiidkiisii oo inta ay kasoo duwan lahaayeen amba ay daydayi lahaayeen booyado ka baktiya dabka oo keliya taa ay ku filantahay inay soo garaacaan 990 goobtina ay tilmaamaan
sidaasina ay kaga badbaadi karaan inuu khasaarihi sii turko qofku wuxuu samayn karaa marka uu dab arko inuu marka ugu horeysa warbixinta soo gudbiyo wixii uu markaasi sii badbaadin karana uu sii badbaadiyo sida bulshada uu goobtii ka soo saaro qalabka qaaliga ah ee goobta ku sugan oo uu kala sii baxsado intii uu xakameyn karo uu la sii xakameyn karaa isagoo naftiisana halis gelinaynin hase ahaatee mar walba waxaa muhiima uu saadabku bilaabmaba in wargelinta lasoo siiyo ciidanka debdemiska oo adeeg bilaasha kula diyaara markaad saa usoo sheegtana dhaqaaqiisu uu ku xiga ciidanka debdemiska. injineer yuusuf ahaan waxaa ka mid tahay ku-xigeenka waaxda tababarada iyo farsamada bulshada aad tababartaan ama qaybtan farsamada aad samaysaan waxaa ka mid bulshada ku gaarsiisaan inay dadkii ay wax ka bartaan. waxaa ka mid ah kolley qorshayaal aad u fara badan oo balbalaaran way jiraan oo loogu talagalay in lagu balbalaadhiyo aqoonta waxa weeyaan bulshadu u yeelanayso dabka hase ahaatee ilaa hadda waxyaabahan fulina waxaa ka mid ah kow inaanu wacyigelin siino dadka waxa weeyaan siday ula mucaamulanayaan ciidanka debdemiska siday warbixinta usoo sheegayaan siday goobta ugu tilmaamayaan marka uu goobta soo gaadho sida loola dhaqmayo waxyaaba noocaas oo dhan inaan wacyigelin ku siino talabaadna waxa weeyaan inaanu bulshada tababar siino weliba ha usii badnaadaan dadka ganacsatada ah ee haween goobaha kala duwan ka ganacsada hadday kaalmaha tahay hadday hodheelada waaweyn tahay hadday tahay goobaha kala duwan ee bulshadu ay isugu timaado oo waxa weeyaan halis gelin karaa haddii uu dab yimaado marka waxyaabahan waxayna waxaa ka mid ah tababarkii inay aqoon u yeeshaan qalabkii ku habboonaa ay soo dhigtaan meeshii oo ay ka diyaargaroobaan cadowga dabka runtii cadow dabku waa marna waa cadow marna waa saaxiib marka si wanaagsan loo isticmaalo waa saaxiibkeena waxa weeyaan la-aantii kama maarmayno marka si xun loo isticmaalana waa cadowga koowaad ee halis gelin kara nafteena iyo maalkeenaba marka waa wacyigelin inaanu siino tababaro inaanu siino dadkii goobta ka shaqeynaya inay ahaadaan dad u tababaran sidii haddii dab yimaado ay u baktin lahaayeen. aad ay mahadsantahay tababarka aad siisaan ee bulshada ganacsatada aad sheegtay iyo weliba kuwa hoteelada ama meheradaha waaweyn haystaa ee aad siisaan ma si joogtaabaad u siisaan mise wacyigelin si guud oo miidiyahaad u marisaan ma seminaara iyo goobo kulamaad iskugu keentaan bal qaabka aad u siisaan. tababarka waxaa loo siiyaa tababarka kulley cid kastaaba dabka iyo damintiisa way u baahan tahay aqoonta dabka hadday tahay goob waxbarasho hadday tahay goob ganacsi hadday ay tahay goob waxa weeyaan barkulan oo la isugu yimaado guud ahaan meel kastaaba way u baahan tahay inay yeelato aqoontii dabdaminta marka waxa weeyaan sidaan u bixino tababarka waxa weeyaan qofku inuu soo codsado tababarkii oo tusaale ahaan oo kale isagoo kambani hebel ayuu codsi keenaya xarunta ciidanka debdemiska waxaanu dalbanayaa in tababar la siiyo kadib markuu qoraalkaa uu keeno uu yidhaahdo tababar baan u baahanahay waxaa la sameeyaa kow marka ugu horeysa waxaa la sameynayaa assessment amba qiimeyn baa lagu sameynayaa goobtiisa ganacsi intaan tababarba loo sameyn marka ganacsiyadu way kala duwan yihiin halista ku xeeran goobtiisa ganacsi ayaa la qiimeynaya kadibna waxaa la qiyaasayaa qalabka ku habboon goobtaas ayaa waxa weeyaan loo qiyaasayaa kadibna waxaa loo furayaa tababar shaqaalaha goobta ka howlgala iyadoo lagu tababarayo kow aqoontii dabka laba isticmaalka qalabka waxa weeyaan goobta ganacsigu uu soo dhiganayo marka sidaasuu noqonaya qof ku helay shahaadada safety-ga ee goobtiisu ay nabadgelyo ku tahay. gabagabada injineer yuusuf muuse cabdulaahi ee hogaan xigeenka waaxda farsamada iyo tababarka ciidanka debdemiska qaranka jamhuuriyadda somalilan bal fariinta ugu dambaysa ee bulshadaada u dirayso si ay halista dabka uga fogaadaan. fariinta ugu horeysa aan u dirayaa waxa weeyaan horta kow dabku wuxuu ka yimaadaa dayacaad inta badan bulshadu ay samayso marka kow horta ka hortag gurigaaga waa inuu ka bilaabmaa waa inaad gurigaagu siduu u habaysan yahay iyo sida qalabkaagu u kala yaala guriga istoodhadaada guryahaaga guud ahaan waana checking ku samaysaa xadhkaha leedhka siday u gashan yihiin meelaha leedhku kaaga soo tallaalayo xadhkaha leedhka ee guriga dhex mara guud ahaan marka ugu horeysa waa inaad adigu adaa gurigaaga dhex jooga aad iska ilaalisaa waxa weeyaan xadhkaha hoolan ee guriga dhex yaala amba waxyaabaha dayacan ee keeni kara dabka taas waa koowaad ta labaad qalabka lagu adeegsado cunto karinta oo iyaguna halis badan bulshada u keena waa inuu qofku taxadir badan ka sameeyaa caruurta laga ilaaliyaa qof aqoon u leh qalabkani uu isticmaalo oo aan cid kastaba iska gelin sidoo kalena marka la adeegsanayo in taxadir dheeraada la sameeyo oo bulshadu ay samayso taasi waa ka hortaga ta labaad haddii ay timaado musiibo marka ugu horeysa waxaa kugu soo dhacaya waa inuu haadaa ciddii kusoo gurmanaysay islamarkaasina aqoonta u lahayd kow waa inaad markaa nayn suuroogi marka ugu horeysaba uu kugu soo dhacaa adigoo tilmaamaya goobta saxda ah ee lagugu imanayo
inta ugu badan la bulshadu waxay samaysaa waxa weeyaan ciwaano qaldan amba waxa weeyaan tilmaamo qaldan bay bixiyaan adigoo ka taxadiraya si degan isku dejinaya taleefanka inaysiyo markaad soo wacdo waxa laga buuxinayaa macluumaad ku saabsan goobta aad dalabka iyo gurmadka ka doonaysid si loogu waxa weeyaan si haboon lagu soo gurmado marka taleefankana ha dhigin ilaa warbixinta laga wada dhameysto oo lagu weydiiyo sidoo kalena aad sheegtid sida ugu haboon iyo goobta ugu haboon ee loo soo marayo sidoo kalena bulshadu waa inay samaysaa inta badan waxay sameeyaan marka dabku uu dhaco goobtii dabka qurun bay ku wada yaacaan marka ugu horeysa horta dabkii in dib looga soo baxo oo waxa weeyaan taxadir dheeraad la sameeyo mar labaadkana tilmaamta ciidanka dibdemiska markaad soo siisaan halka ugu dhow ee wadada uu kaga leexanayo waa inay bulshadu sii istaagtaa si ay ugu tilmaamto markuu halku ka leexanayo oo aanu ciidanka dibdemisku amba u dhaafin amba waxa weeyaan meel kale uga eegin tilmaamtii marka ugu horeysa in tilmaamtii la saxo mar labaadka in la soo istaago goobta tilmaamta aad ku siisay ciidanka dibdemiska si uu uga leexdo waxa soo dhanna waxay keenaysaa marka in la yareeyo waqtigii waxa weeyaan lagu soo gaari lahaa goobta sidoo kale waxaan fariin u dirayaa dhammaan wadayaasha gaadiidka oo runtii waxa weeyaan halis badan ku keena ciidanka dibdemiska marka uu gurmanayo markaad maqasho dhiilada amba dhawaaqa ciidanka dibdemiska mar walba waxa loo gurmanayaa waxa weeyaan waa musiibo jirta oo cidi soo sheegatay ciidanka dibdemisku dhawaaqa kuma dhufto ilaa iyo inta la soo marka la soo sheego dhibaato mooyaan marka ugu horeysa naf iyo maal baa loo gurmanayaa waa inaad parking gashaa halka kugu haboon gaariga dhigtaa hana isku dayin inaad wadada ku sii jirto markaad maqasho qaylada ciidanka dibdemiska sababtoo ah taas waxay keenaysaa inay waxa weeyaan waqtigii baajiso ugu dambeyn waxaan u gudbinayaa waxa weeyaan bulshada in loo yeesho aqoon ku filan oo lagu badbaadin karo naftooda maalkooda ehelkooda iyo ummadoodaba marka waxa weeyaan cadowgaaga waa la bartaa in dabka si wanaagsan loo bartaan ugu dambeyn soo jeedin la guud ahaan bulshada Soomaaliland waa hagaag dhageystayaal aad ayuu mahadsan yahay injineer Yuusuf Muuse Cabdullaahi oo ah hoggaan xigeenka waaxda farsamada iyo tababarka bulshada ee ciidanka dibdemiska Jamhuuriyadda Soomaaliland oo marti ku ahaa barnaamijka maqal dadkaaga ee radio Hargeysa su-aasha toddobaadka ee barnaamijka maqal dadkaaga caasimadda Hargeysa ayaa mar waliba waxaa ka qarxa dab ka dhasha leydhka sanadkan gudihiisana waxaa dab dartii u dhintay caasimadda dad ka badan ilaa 10 qof su-aashuna waxa ay tahay maxaa la samayn karaa si waxqabadka ciidanka dibdemiska loo wanaajiyo ku jawaab in maalgelin dheeraad ah la siiyo b in qorsheynta caasimadda la saxo si gawaadhida gurmadku u helaan wadooyin toos ah c in la badiyo xarumaha dabka d in la tayeeyo xirfadda shaqaalaha dibdemiska qaabka jawaabta waxaad tegaysaa qaybta fariimaha telefoonkaaga qor maqal in yaru banee kadibna qor mid ka mid ah jawaabaha a b c ama d dabadeetana u dir lambarka 343 fariintu waa lacag la'aan guud ahaan dhageystayaal barnaamijkeennii toddobaadkan ee maqal dadkaaga waanu kaga hadlaynay faa'iidada dibdemisku u leeyahay bulshada reer Soomaaliland intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa waa Ikraan Siciid Diriye iyo Maxamed Cabdi Qalinlo oo idigu dhaafaya intaan barnaamijka lamid ah ku kulmi doona haddii Allah awood loo ogolaado sidaas iyo nabadgelyo hay'adaha dhulkeena xilka dhabarka saare loo dhaarshay qaranka waxaa dhaxo hawlida sugaysa maxaa hawlidin sugaysa kuwa dhiilki buuxshe dhiishii ka marante dhabatoosa hayste ka dhur sugi dadalka